بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. halkii baynu kasii wadaynaa aqoonteena waxbarashada islaamka ama tawjiihada alislaamiya. waxaynu maraynay barnaamijka caqiidada aynu ku jiray. waxay noo bilowday qaybtii ahayd arkaanul iimaan ee lixda ahaa. laba hore ayaynu soo maray, aliimaanu billah iyo aliimaanu bilmalaa'ika. maantana waxaynu dhigaynaa aliimaanu bilkutub, kutubta uu rabbi soo diray ee loo soo dhibay rususha lagu soo dejiyey, iyaguna ay soo gaadhsiinayeen ummadihii loo diray. kutubtu waxa weeyaan ama waxyigaa lasoo xagga samada ka yimi ee rabbi u soo dejiyey ummadaha. ujeedkoodu waxa weeye allah subxaana wa tacaala inay baraan khaaliqa iyo makhluuqa, inay isbaraan, inay keligii caabudaan, inay ku dhaqmaan oo noloshooda oo dhan ay hagaajiyaan. wixii laga reebana ay ka reebtoomaan, wixii la farana ay fartoomaan. sidaas ay ku gaarayaan barwaaqo adduunyo iyo mid aakhiraba. aakhira naarta kaga badbaadayaan, jannooyinkii rabbina ku helayaan. marka kutubta la soo dejiyey ee la doonaya la rumeeyo, afar magacyadoo laynoo sheegay. waxaa kaloo laynoo sheegay suxfu ibraahim, iyadana waa la sheegay inkastaan la magac dhabin. iyo kutub kaloo nebiyada loo soo dejiyey, wamaa utiye nebiyuun, nebiyada la siiyey iyagana. marka waxa weeyaan kutubta si ijmaaliya baynu u rumaynaynaa insha allahu tacaala. kutubtii la soo dejiyo dhan waan rumaynaa, wixii laynoo sheegay waxaan laynoo sheegin. afarta markaa laynoo sheegay zabuur oo nabiyullaahi daawuud loo soo dejiyey, daawuud calayhi salaam, iyo tawraat nabiyullaahi muusa loo soo dejiyey, injiil nabiyullaahi ciisa loo soo dejiyey calayhi salaam, iyo qur-aanka oo lagu soo dejiyey nabiyullaahi maxamed sala allahu alayhi wasalam. xaggana iyagoo ingiliish ah ayaan ku qornay, iyo magacyada kale loo yaqaano, nebiyada laftooda magacyada loo yaqaano. intaas ayaynu kusoo koobaynaa. kutubtu waxa weeye qur-aanka ugu dambeeyey, waana kitaabka soo khatimay. kitaab kaloo soo degayaa ma jiro, nebi kaloo soo degayaana ma jiro. kitaabka markaa qur-aanka ahi oo kitaab mucjiz ah, waana kitaab rabbi innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun. annaga ilaashanayna, soo dejina annagana ilaalinayna. waayo mar haddaan kitaab kale ka daba imanayn, si aan loo badbedelin oo loo maxay ahaataay khalkhalin, allah subxaana wa tacaala ayaa damaanad qaaday inuu isagoo ilaalinayo. kutubtaa kale waa la nasakhay, oo waxay marka kitaab yimaado dee kitaabka ka dambeyn baa la raacayaa. nebiyada qaarkood inkastoo ay marmar laba nebi wada noolaayeen oo wada midba ummad loo diray, laakiin nebi maxamed ummadahoo dhan baa loo diray, jiniyeysi. isaga marka waxa weeyaan kutubtii ka horreysay oo dhan qur-aanka ayaa nasakhay, isagaa la raacaya. waana qur-aan mucjis ah, yani qur-aanka macnihiisa qofku hadduu barto ama haddii uu maxaa tahay akriyo, waxa weeye wuxuu dareemayaa dee inuu yahay kalaamullaahi, inuu mucjis yahay. dadka badankiisuna qur-aankaasa lagu akriyaayo ku muslimaan. gaaladii qureysheed qur-aankaas baa lagu akriyayey. kuwa maanta nool qur-aankaasunbaa maxaa tahay lagu dul akriyaa, loo sheegaa wuxuu rabbi yidhi. ama iyagaaba markay ogaadaan macluumaadka ku jira iyo qur-aanku wuxuu ka warramayo, dad badan saynisyahanina ayaa ku muslimo kutub ka qoray. kutub fara badan baa laga qoray. Quran and modern science baa la qoray. kitaabka book kale la yidhaahdo mucjisooyinka iyo qur-aanka. kutub fara badan baa laga qoray. niman soo islaamay oo saynisyahanina baa kutub badan ka qoray. ilaa yoomana haadana waa lagu islaamaa, waayo qur-aanku waa mucjiso ilaa maalinta soo degayey ilaa maanta. qofku markuu akriyana, markaad mar akridid, marka labaad akridid haddana isbedel baa kugu imanaya. mar walba waxaad moodaysaa inaad waxaanad hore uga fahmaad ka fahamtid. marka saasuu mucjiso u yahay. isagaana mucjiso looga dhigay nebi maxamed sala allahu alay wasallam, isagan kan loo lahaa nebigu. xagga dambe aynu ku sheegi doonaa, laakiin qur-aanku mucjisooyinkiisa inuu mucjis yahay
wax maalin walba la arko halkaas baynu deena insha Allah taala duruustii hore qofkii ay dhaaftay telefoonada nagala soo xiriira buug PDF fadhina ku higaada ahaa bilaashka ahaa iyo carabida oo si degdeg markii wada baranaysid macallimiin badan baa isticmaasha dad badan wax ka bartay higaada quraanka channel ku jirta channelka lacag lagu sameeyo Adam Islamic channel ama higaada quraanka Google gare way ku soo baxaysaa ama Adam Islamic channel ayaad galaysaa Adam Islamic channel baad ku qoraysaa YouTube-ka oo ku soo baxaya playlist-ka sii galaysaa markaas aad u soo xigtaa halkaas bay inoo joogaysaa barakaatu